habeen walba meel habaas badaniyo mahoodaan u yeeshay heeladani habboonay mahooyada gacala xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto ninba waxba ku tilmaamay marka sida magacaygaba uu ku suntan yahay kale waxaan malaynayaa ciyaaraha dhaantada ama dhaqanka hadii la yiraahdo dhaqanka waa wasiyaabo fara badan yahay especially laakiin dhaantada ciyaaraha dhaantada baan malaynaa kaga qayb qaato yarta dheereeyadaad dhunta marilay sida dhiftaan caloosha ku dhigala sida dhoolka hilaaca ama dhaysta daruurta dhaxyareey dhaayahaygu way ku dhowranayaano kuma dhaafi karaye dhole dhaxdamay isqabsanaye yalaale kuma dhaafi karaye dhole dhaxdamay isqabsanaye yalaale afka dhuuxo shaliya dhaabanaadaan markan dhogowray buu dhiigu boqoli taagay caldaantu waa ninkan soo hor fadhiya laakiin dhaantadu waa naanays waa cali bashiir cabdi ku dhashay deegaanka soomaalida xabay ka tarag mayso tuultuuliya qabale moogta dhaantada kasoo bilaabay halkaas iyo ciyaaraha muddo badan kusoo jiray oo eega gaaraysa waa 12 ilaa 13 sano dhaantooyinku waa gobolada ku jirtay oo baad ka soo dhaadhacdeen dhulka hooyaad lululanay ka soo dhaadhacdeen oo uu sameeyay la yiraahdo saaxiibkay Muuse la xabaalay way waraa laakiin Muuse soo baxay baan u bixinay xabaashi baan ka soo saaray mud wadhaanto waxay ahayd wadaniya marka waxaa jirtay mar deegaanka magacyadii gobolada la bedelay marka waxaan ugu dan lahaa inay dadku ku bartaan bulshadu magacyadan cusub ee maartay gobolada loo bixiyay loo kala bedelay marka habeen walba meel habaas badaniyo mahoodaan u yeeshay heeladani habboonay mahooyada gacala ku tidhi ragga heela u tubine gobolka mugub gobolka city gobolka fafa baad ka soo dhaadhacdeen dhulka hooyaad lululanay ka soo dhaadhacdeen lawnaalki lagu dhale dhayda lagu abiya dhaxyar dhuubo dhulka hooyaad lululanay ka soo dhaadhacdeen marka gobolada dhan bay wada tirnaysay kooxdan muusigii tunta cadaanka markaan u sheegayay waxaan uga cabirahay waxa ku leeyahay Allah kan waa reegay markaas aan reegayga meesha laga soo qaaday soo meesha annada maaha reegay baad ku aragtay war reegayga meesha laga keenay waa xaq anaga saasaan isku qabsanay marka ayagu waxa laga yaabaa inay dhaqanka Soomaaliga aysan u fahmin dhaqanka Soomaaliga uma yaqaanaan reegaan laakiin waan u sheegto waan u sheegnaa reegayguba wuxuu ka yimid xaq anaga Bob Marley ninkii halka aragtay gaaray baashii Afrika xaq anaga ka soo qaaday adeero marka reegayga anaga laga soo gaaray ciyaaraha anaga ninka baadiyaha joogay ee geel la jooga markuu tuu caanaha ka dhargo uu rukaasayo dhaantada tumanayo waa reegay laakiin isagu reegayaan kuma yaqaan adduunka reegay laga yiraahdo muusigiisa marka reegayga meesha laga soo gaaray waa nimanka marada intay geed ka saartaan halkan oo kale intay marada geed saartaan oo gabar ka dhigtaan oo si fiican u dhaanta tuntaan dumaray shaqaan jiro geel iska raaci jiray marka waxaan leeyahay dadkan Swedishka si fiican bay konsertiyada waa xafladaha waaweyn kamuunada iyo degmooyinka oo in baan soo wacda iyagan marka xafladaha inta badan u qabnaa kooxda cadaankaana aad bay uga helaan hadda inta ay la shaqeynayaan muusigayga aad bay uga helaan runaantii
adigay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kafankaaga way kalmaysataha ka shanaad hantida adigay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kafankaaga way kalmaysataha ka shanaad bismillaahir rahmaanir magacaygu waa Suldaan Seraar dadka qaar ba waxay muudanaanays laakiin magacayga saxda ah waa Suldaan abahay waa Seraar awina waa Guhaad dunida madowgiyo mugdiga baa la dhalato madhamaysta aadmigu intuu midho abuurtay mixnad layna geliyo mushkiladii adduunka ina kala maqoonsho midba gabi ku moose ina kala maqoonsho midba gabi ku moose fankii la yaraantayda waan iska jeclaa laakiin fanaan baad noqon iideedii maan gelinin xilli aan u imid fasax magaalada Jigjiga ee caasimadda Somali State ayaan jeclaystay inaan fanka isku eego marka gabar walaashay baa iga caawisay marka kooxda Ilays Bandi igu dartay oo si qurux badan ee ii soo dhaweysay kooxda xurmiya gaarashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad hidiya dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayay xabiibitaan doonayay markaan xubiyay ku tabo shirkaa xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku walaa waxaan isleeyahay Soomaalida markii la yiraahdo inaga ahaan fankeenu ma lahan qiimo gaar ah ma lahan sida dadyoga kale fankeenu waxba lagu ma helo laakiin waxaan isku daynaa insha Allah inaan fankeena aan fan qiimo gala oo dhaxal gala oo ummadana wax aan ugu reebno inagana wax inoo tara inuu insha Allah noqdo rajaynaya wajiyo cusubna aan u sameeyno qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adika la baxay qalbi ku kalsoon ba kugu